الله وبركاته دمان قولها وزير رضا حمناها بارلمانكا كرميرياشا معلمين تا أرضيضا هي دمان بحض وحبرشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن ومالين كنتي مالين فرحدادا ومالينتي امتحانكا ay u fariisanayeen arday ku dhow 16,000 oo arday 106 goobood oo ka kala tirsan Puntland. runtii dawladda Puntland waxaa sharaf weyn u ah sida quruxda badan oo u nidaamsan ee wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadku ay u diyaariyeen imtixaanada shahaadiga ah ee sanadsiyeedka sanadkan oo runtii qiimo gaar ahaan anay ugu fadhiya oo kii u horeysay oo anoo xil haya aan uga soo qayb galay waxaan rajaynayaa insha Allah inuu sanad ka duwan u noqdo. waxaan rajaynayaa ardada cadadkan leeg oo maanta fadhida oo sida habsamida ah iyo qorshaha loo dajiyay ku fuli doonaan. waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa inuu imtixaankan ku dhamaado guul iyo ardada u fadhida oo aan u rajayno natiijo wanaagsan. waa meel lagu tartamayo, tartan ma sahlana, waa meel la isku dhaafayo, laakiin waxaan rajaynayaa tartan caafimaad qaba oo qof walba ulajeedadiisu ay tahay inuu isna miisaamo wasaaraddu ay miisaanto. imtixaanku in la isdhibayo maaha, imtixaanku waa qiimeyn, waa hubin iyo qiimeyn heerka tacliinta ay ardadeennu marayso. waxaan rajaynaynaa qiimeyn wanaagsan inay ka soo baxdo. haddii ay qiimeyntaas dulduleelo ka soo baxaanna wasaaraddu qorshayaasheeda dambe ay ku darsato siday u sixi lahayd haddii ay jiraan waxyaabo daldaloolo ah. waxaa ilaahay mahadiisa dhulka Puntland oo aad u ballaaran, sida hadda la sheegayo min cirif ilaa cirif oo ay meelaha qaybtooda laga yaabo inay 1 kilomitir wax ka badan isu jiraan, duruufo kala adag ku jiraan, dhul aad u fog oo ay dhici karto in imtixaanada doonyo lagu geeyo oo baabuurta iyo jidadku ay geli karin ay jiraan. in kulli ay wasaaraddu ku guuleysatay inay imtixaanada saacadan maanta la joogo halkaan halka joogno ay kulligood waqti isku mid ay ka fulayaan. runtii ilaahay baan ugu xamdinaqaynaa, waana guul ay wasaaradda waxbarashada ee Puntland gaartay oo runtii tijaabo iyo tusaale u noqon doonta geyiga Soomaaliyeed dhammaantiis. waxaan rajaynaynaa khibraddaas iyo waayo-aragnimadaas muddada dheer soo socotay inaan la wadaagno meel goobaha kale iyo deegaanada kale iyo maamulada xubnaha ka ah dawladda federaalka, in khibraddaas iyo dawladda federaalka ardada ka qayb galayso inaan u gudbino khibradda iyo sida loo maamulo iyo sida loo manage gareeyo. waxaan rajaynayaa imtixaankan inay najaxaan iyo in imtixaanka gelidiisu ay najaxdo waa inay isugu mid noqotaa. in systemka imtixaanka qorshaha uu ku socdo aad ku guulaysataan inaad muujisaan ilbaxnimo, inaad muujisaan dad nidaamka u hoggaansan, in waxyaabaha ka dhacay hadda dawladda federaalka ah dhibaatooyinka laga sheegayo oo kale ay nagu dhicin mas'uuliyaddaas. waxaan aad uga mahad celinayaa intii imtixaanadan ay socdeen. waxaa lay sheegay hal magaalo in mar si khasab ah lagu jabsaday iyadana imtixaankii la bedelay, marna liig iyo imtixaan baxsaday ama imtixaan suuqa galay uusan jirin. waan rajaynayaa sanadkana sidii oo kale waan ilaahay ka rajaynayaa, laakiin dadaal iyo foojignaan dheeraada ayaan farayaa dhammaan howlwadeennada tacliinta ka shaqaynaya iyo goobaha dawladda. waxaan rabaa halka inaan uga gudbiyo dhammaan gobollada, degmooyinka, qaybaha booliisyada, taliyayaasha saldhigyada, howlwadeennada dawladda Puntland oo dhan, kuwa madani ah iyo kuwa ciidanka aba inay ka qayb qaataan ilaalinta imtixaanka. inta loo qorsheeyay ma ahana inta kale oo dhan waa inay gacan ka geysataa
habsame u socodka imtixaanka nabadgelyadiisa xasiloonidiisa iyo in aanan dhicin wax tagrifal ah iyo xadgudub ah waxaan rajaynayaa kormeerayaasha iyo macallimiinta inay si wanaagsan oo naxariis ku jirto oo hufan ay ardada iyagoo aanan runtii gelinayn jawi uu ardaygu ku khalkhalo jawi degan oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo ku jirto oo aan culays lahayn oo ardada aan lagu xadgudbayn in imtixaankan loo ilaaliyo imtixaankan waa qiimeyn aan nafteenna iyo heerka waxbarashadeena aan qiimeynayno ee maaha in ardayga lagu imtixaanayo oo lagu cadaabayo oo lagu maaragtay xumaynayo waxaan rajaynaynaa in sidii wax niilo baray inay ka soo baxdo ardada mararka qaarkood imtixaanada waa ay ku liiteen ama ardayga keliya maaha waxa ceeboobaya macallimiintii wax barteen waa ceeboobaysaa marka waxaa la rabaa in labada dhinacba natiijada ay fishaan macallimiintii isku soo dadaashay oo waqtiga soo gelisayna guul baan u rajaynayaa maxaa yeelay ardadooda najaaxooda iyagana guul bay u tahay ardada iyo waalidiinta waqtiga dheer soo qaatay oo muddada dheer ee wax soo baranayna guul baan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan oo tacliina ayaan u rajaynayaa dhammaan ardada puntland ee maanta imtixaanka gelaysa waxaan rajaynayaa kuwa sanadka dambe ku xiga oo hadda ama form 3-ga ah ama galaasyada toddobaad ah ee sanadka dambe geli doona iyagana inay khibrad iyo tijaabo ka qaataan waxaan rajaynayaa dhammaan warbaahinta dhammaan inta jecel horumarka puntland in imtixaankan uu uga duwanaado imtixaanadii kaleeto in ay si fiican ula socdaan horumarkiisa maaragtay tabintiisa si hufan oo wanaag ku jiro oo in imtixaankan looga wada shaqeeyo waxaan rajaynayaa inuu guul noogu dhammaado waa howlgal qaran weeye imtixaanka maanta bilowda intuu socdo dalka guud ahaan magaalooyinka puntland waxay ku jiraan howlgal qaran oo aan rajaynayo guul in laga gaaro waxaa runtii farxad ah in arday 15,892 arday u fariisteen 106 gooboodna ay lagu gelayo wax 1,100 ama 1,200 oo si toosa imtixaankan uga shaqaynayaan ay maanta diyaarsan yihiin gaadiidkoodii iyo agabkoodii iyo dhammaan meelihii loogu talagalay guul baan idin rajaynayaa imtixaankii dhow waxaan leeyahay insha allah najaax wanaagsan horumar iyo guul waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu